waxaan saaka idinku yeernay xisbihaan inaan cadeyno mowqifka iyaga ku wajahan arrimihii doorashooyinka iyo heshiiskii laga gaaray maalintii u dambeysay ee madaxtooyada ay ku saxeexeen saddexda xisbi qaran ee madaxweynuhu hormuudka ka ahaa oo ay shalayto waxa weeye ku soo diristay in si sahlan oo aan sharci ahayn oo aan hab raaca iyo nidaamka sharci waafaqsanayn la yiraahdo qof baa isu hortaagay oo inaan lawyer baa isu hortaagay la yiraahdo ayaan doonaynaa inaan ka hadalno mowqifka iyaga horena waxa uu sheegay Cabdulqaadir waxaanu si faahfaahsan uga warramay arrintan noocaas ugu horeyn waxa aad wax loogu qosla oo la yaab leh heshiiskii madaxweynuhu hormuudka ka ahaa ee miiskiisa lagu saxeexay ee saddexdii xisbi qaran gudoomiyaashoodii labadii xisbi qaran ee kale mucaaradku gudoomiyaashoodii ay wax ka saxeexeen yaan qaranka cid u maqnayn ee beesha caalamkuna inugu helisay marxaatiga ka ahayd in nagala shaqaysay in la yiraahdo inanba loo yaraba diidayo yiri waa sharci darro oo madaxweynaha iyo intaas oo dhan waxa isku raacda waa sharci darro oo waxa loola yaabo oo lagu qoslo wuxuu oran karaa hadal ma diidayno wuxuu oran karaa aragtidiisa sharci buu sheegi karaa loo yarahaan ama sharci yaqaan qofka sharci yaqaanka aragtidiisa sharci buu sheegi karaa laakiin heshiiska oo nuxurkiisu ahaa in golaha la horgeeyo goluhuna ama diida ama yeelo sida heshiiska ku qoran ama ansixiyo ama uu diido waxa kaliya oo wax ka bedeli karayo diidi karayo heshiiska ama burin karayo ama laali karayo diidmada goluhu diido xisbiyada mucaaradka aanu ka mid ka nahay way ugu tala galeen haduu goluhu diido qodob ka midana weeyii haduu goluhu diido in sidiisii hore loogu dhaqmo haduu ogolaadana in saga laga dhigo marka waxa muuqata xukuumadii kulmiye ee madaxweynaheedii saxay iyo xisbigeedii oo the speakerku uu ahaa goobjoog inay si indhalaan heshiiskii u buriyay maadaama ay buriyeen oo ay ka hor yimaadeen qodobadii heshiiska oo aan sidiisii u raacin annaguna mowqifka wadani waxa weeye waanu ka baxnayo heshiiskaasoo nama qabto waxa weeye waanu ka baxnay laga bilaabo maanta heshiiskaasu uma xidhnin waxa si aan ogolahay haddii miiska wada hadalka la isugu yimaado hawshii dib loo wadi doono haddii hawshii dib loo wadi doono oo ay ka noqdaan qaladkooda ama garwaaqsadaan oo la yiraahdo aynu wadno oo ay nala arkaan oo ay madaxda kale ay bari ka tahay annagu waxnu tuunsanayna iyagu dabada ka riixayaan haddayse bari ka noqdaan oo yiraahdaan waarwaanu idin kala niyad baan waanu niyadsanahay in heshiiskii la sii wado annaguna waxay qaranku ku heshiiyo ama maslaxada ummadda ka gacan taagan mi laakiin si mowqifka iyagu waa kaan soo sheegay maxaan uga tagnaa dadka qaar baa laga yaabaa inay fikrad qaldan iska dhaadhiciyaan shalayba waxaan arkay ragle waxay hadii la diiday hadii la yeelo war cidda laga hadlayay hadii la diiday hadii la yeelo golahay ahayd inan maaha inan intuu isa soo taago waxay xisbiyadu ku heshiiyeen ee madaxweynuhu saxeexay ee 22ka baarlamaanka xubnihiisa saxeexeen ee mooshinka sharciya mashruuc sharci baa la markuu stage ka marayo inan ma diidi karo talo ka dhiiban kara inan ma diidi karo mana dadafin karo mana laali karo sharci yaqaan waxaanu inan kula taliyaa gudoomiyaha haduu sharciga kala taliyo isagu go'aan wax ku diiday wax ku yeelo ma laha marka waxaan arkay rag qaarkii oo dhigaya goliya haduu diiday waa in todobadii laga dhigaa todoba hadii laga dhigo way sahlanaan lahayd hadii goluhu diido annaga marka ku khasbanayna inuu heshiiska raacno laakiin saadar golihi lama horgeey waxa iga muuqata wadaada bere murmayo markaas waxa sharci baa lagu murmo oo kidii wadaadadu isku qabta sharcigo mid baa wuxuu yiri war salliga nabiga diidanta hadda salliga bal isma hayo wuxuu isla soo taago salliga nabiga diidanta adeer heshiiskii wuu buray oo heshiiskii waa la laalay baan leeyahay adiga buriyay waxay ka dhigantay salliga nabiga diidanta heshiiskii adiga buriyay ee bareer haddaad burisay oo ka baxday
oo kula madmadoobaday waliba waxaan cadeynaya golaha kulmiye inuu majority leeyahay oo dariiqii u furaay ugu sahlanaa anagu aanu bareernay dad badan dhala yaabanay lahayn maxaad u geyseen ee u aqbasheen u ahaa in heshiiska loo codeeyo codka way naga cod badnaayeen kulmiye golaha aqlabiyad buu ku haystay goli ay aqlabiyada ku haysteen intay ka baydhaan xildhibaanadii u codeeyaan in dariiq qardajeexa waan sharciga meel la kaga oo inuu kulmiye u bareero waa ayaan dar waxaan leenahay waa kulmiye dawladnimada aamin waa sharciga aamin war golayaasha codkooda aamin war madaxweynahaaga saxiixiisa aamin qodobada heshiiska ayaa nasiinaya inaanu ka baxno hadii ay buriyaan aanu cadeynayna inay buriyeen waxay ahayd oo heshiiska ku qoraa in awalan ba laga wada shaqeeyo oo saddexda xisbi ay ka wada shaqeeyaan 15 xubnoodan guddiga anu kamid ahaa ayaa loo qoondeeyay oo lagu heshiiyay inay ka shaqeeyaan kulmiye kama soo xaadirin baarlamaankana nooguma iman fadhi kaliya noogu iman laakiin u cid waan wada fadhinay ilaa iyo shalayto ilaa iyo maalintii waan wada fadhinay ka wada shaqeynay waxaanu cagta ku baadi doonaa kulmiye inaanu niraahno war kaale nagala shaqeeya anagoo ka eegayna niyad samida iyo danta guud iyo maslaxada ummadda gudoomiyaha ugu tagay madaxweyne ku-xigeenka gurigiisa oo weydiiyay wali waan sugaynaa wali noomu iman shalay uun bay lagu warhelay inaan baa yiri waxba kama jiraan wixii intaas ku heshiis waxa iyaduna tusinaysa inay heshiiska gacan bidixayeen oo kulmiye ka baxay qodob kamid ah tilmaamayay in si siman ay u saxeexaan xildhibaanada saddexda daraf ucud xubin bay ku lahayd markaana waa la isku ogaa xubinteediina meel fog bay uga yeedheeno qayb uu ka u saxeexa kulmiye laba nin oo iskood noogu yimisi madax banaan mooyaane kulmiye madaxdiisina nooma iman xildhibaanna abaabulana uu noo keenay uu hebel bay la saxeexayana oo ay hadeen 7 xubnood ugu yaraan noo keenaan koob iyo 10 buu ku ansaxay laakiin waxa la isku ogaa lagu heshiiyay in ka badan ugu yaraan koob iyo 10 bay inay 7 xubnood 6 xubnood labada xubnood oo iskood noogu yimi mooyaane waanu ku amaanayna runtii inay danta qaranka xiriiriyeen iyadoo xisbigii ay xildhibaanadoodii nagu yiraahdeen marka nu la hadalay xisbigii nama amrin bay nagu yiraahdeen marka waxaanu leenahay qodobkaasuna heshiisku kamid ah iyaga jabiyay ka saddexaad wuxuu ahaa marka heshiiska la geeyo haddana in laga wada shaqeeyo meel marinta heshiiska ee ama xildhibaanadu ku diidayaan ama ku yeelayaan taasuna ma dhicin marka waxaanu leenahay maadaama aanay yani ka shaqaynin oo nagala shaqaynin oo sidii heshiisku ahaa aanay kulmiye fulinin maadaama aanay raacin procedure-kii ama nidaamkii heshiisku ahaa maadaama ay qayb ka ahaayeen arrinta tan dhacdayo dee iyadoo aanu golihii diidin golihina aanu waqtigiisii gaadhin goluhu hadduu fasax sharciya galo mushkilad maaha golaha waqtigiisii gudoomiyuhu wuxuu noo sheegay inuu 23 bisha fasaxu kuga yahay fasax la soo qadimay aan waqtigiisii ahayn ayaa gudoomiyuhu u galiyay xisbiga u galiyay fasax galiyay golihii marka dee taasuna waxay muuqataa inay qayb ka ahaayeen inay heshiiska waxa weeyaan ka baxaan oo buriyaan haddii ay ka baxeen oo buriyaan anaa ka baxna waxaanu leenahay waar doorashadii haddaa diyaar u tihiin nin kale wadani doorasho dooni maayo ilaa maalintii waxaanu la taagnay doorashaanu doonaynaa miiskaanu u taaganahay waxaanu leenahay wuxuu ka dhigay ninka uu salliga nabiga diidanta waraadeer ma diidanini doorashada ma diidana wadaniye miiska kaalaya haddaana doorashada diidanayn maxaad golaha majority-ga uga tahay uga baqaysaa ee u yimin weydi ee uga codayn weydi ee uga ololeyn weydi ee uga shaqayn weydi marka waxaan ku soo ururinayaa wadana mowqifkiisu kaan idin sheegay weeye waxa uu kala shaqaynayaa cid walba oo wada in dariiqii doorashada wadaxda laga xaadho oo la diyaariyo wuxuu kala shaqaynayaa wadani diyaar buu yahay kala shaqaynayaa doorashu minidkii la qabtaa daqiiqadii la qabtaba hadii la baraa la qabanaya doorashu diyaar u yahay laakiin si deewaaniga soo sheegay heshiiskii ahayd caqabadii hor taagnaa iyo arrimihii laga wada hadlayay waxa diiday kulmiya diiday markii horena
qardajeexii sibay mareen iyadoo sahladay dacwadii wadani soo gudbiyay ee 7 xubnood ee komishinka ay kaga ku eedeeyeen iyadoo ku filaydin guddi loo saaro oo maalinta labaadba gudoomiye markuu guddiga magacaabo maalinta labaadba guddiga oran kari lahayd garbayleena ma garma laha wadanina hadii la gar uma laha wadada iska mari laha ayaa maalinta horena waxa la maray dariiq aan sax ahayn oo ahaa waanu abaal marinayna waxa maxaad u abaal marinaysa waxa xakinkii inoo dhaxeeyay maxaa tuunka ugu abuuraysa tuunka ninka xakinka waa la eedayn karaa oo cid way tuumi kartaa adigu se maxaad maraga ugu furaysaa tuunka maalintii horena dariiqa waqtiga dheer qaatay iyaga sabab u ahaa oo laga yaabo inay bari ahaayeen komishinkii laga yaabo hadii waxba ku cadaan waayaan waxa wadani ku khasbaa in la yiraahdo waa bari hadii waxba ku cadaan waayaan guddi dhaxay ay tiraahdo waa bari marka iyagiina baraadoodii iyo waxa weeye inaanay dhibaato geysan iyaga madmadow geliyay waqtiga dheer way lumiyeen maantana iyadoo dariiqii sahlana ka yahay ayay qardajeexa mareen waxa la kurmiyo qardajeexa ka soo noqo wadada amaatintii